بسم الله الرحمن الرحيم كله وعلى وناكسن داوديال halkani waa telefishinka Tirsan Muqdisho waxaan kusoo gudbinayaa barnaamijka faqaadada ciyaaraha waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha July sanadka 2025 arbixinada daqiiqada soo aadan barnaamijkan kusoo qaadan doono waxaan qayb ka ah kooxda Manchester United oo u dhaqaaqaysa saxiixa weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani barnaamijka kusoo qaadan doona sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa Chelsea oo gabagabeynaysa asbuucan xiisa ay u qabto laacibka RB Leipzig ee Chef Siemens barnaamijka kusoo qaadan doona sidoo kale Chelsea waxay heshiiska shakhsiga la gaartay daafaca kooxda kubadda cagta Ajax ee lagu magacaabo Gerard Hido barnaamijka kusoo qaadan doona waxaa kaloo soo gudbin doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta waxa uu shaaca ka qaaday cidda rigooraha u duuri doonta kooxda Arsenal kadib imaanshaha Victor Gyökeres oo kooxda kusoo biiray haddaba ka xidiga Arsenal rigoorada u duuri doona barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa waxaa kaloo soo gudbin doonaa weeraryahanka kooxda kubadda cagta Newcastle United Alexander Isak waxa uu kusii dhawaanayaa ku biirista kooxda kubadda cagta Liverpool kadib Luis Diaz oo kooxdaasi ka dagaya barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa kama marna wargeysyada waxay ka soo qorayaan suuqka ciyaartoydan soo bilow saaxiibayaal barnaamijka faqaadada ciyaaraha Dalsan TV kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqday saxiixa weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain weerarka ka ciyaara ee lagu magacaabo Randal Kolo Muani iyadoo Manchester ay baadi koob weyn ugu jirto sidii weeli lahayd ciyaartoy dhaliyaha isla markaana wax weyn ka bedeli doona waaxda weerarka kooxda Manchester xiliyaareedka soo socda 2025-2026 kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qaadaysa dhaqdhaqaaqyo qatar ah si ay ula soo saxiixato weeraryahanka naadiga Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee xayagan sida lagu sheegay warbixin haatan soo baxday ciidanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa ku soo baxay ama ku soo laabtay ciidanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa waxa uu ku soo laabtay PSG kadib ama uu ku qaatay kooxda kubadda cagta Juventus qaybtii labaad ee ciyaareedkii tagay 2024-2025 isagoo diiwaan galiyay 10 gool iyo 3 caawin 22 kulan oo tartamada oo dhan kooxdaas u saftay kooxda haysata UEFA Champions League ee PSG ayaa wali Kolo Muani kula jirta qandaraas 3 sanadood ah laakiin lama filayo in xirfadiisa uu ku soo ceshado caasimadda Faransiiska waxaanay u badan tahay in iib joogto ah ay u helaan kooxda kubadda cagta PSG xayagan laacibkani laba kooxood oo Premier League ah ayaa horay waxa ay isaga diideen inay laacibkani ay la soo sacidaan iyadoo laacibkii hore ee Nantes iyo Eintracht Frankfurt uu haatan ku wajahan yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United laakiin Juventus ayaa la filayaa in ay sii haysato laacibkan maadaama xiliyaareedkii hore uu ama kooxda ugu soo ciyaaray si kastaba haatee majalada Talyaaniga ee Gazzetta dello Sport waxay sheegtay in Bianconeri ay hadda wajahayso halis kaga imaanaysa Manchester United oo xiisaheeda uu noqday mid la taaban karo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay shahaadiinta cascas ayaa hore Bayern Mbumo iyo Matthias Cunha waxay kala soo wareegtay kooxaha Brentford iyo Wolverhampton Wanderers waxaana ay noqonayaan waaxda weerarka kooxda kubadda cagta Manchester United xilliyeedka soo aadan 2025-2026 xidigii hore ee Sporting Lisbon Victor Gyökeres ayaa waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta Arsenal Victor Gyökeres ayaa sidoo kale ayraadey Victor Osimhen ayaa isaguna waxa uu si toos ah ugu biiray naadiga Galatasaray waana ciyaartoydii weerarka oo ay kooxda kubadda cagta Manchester United xiiseynaysa sidoo kale weeraryahanka lagu magacaabo Benjamin Sesko ayaa isaguna waxa uu yahay ciyaartoy kale oo ku sii dhawaanaya ku biirista kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ciyaartoydaasina Manchester waxay ahaayeen kuwa ay rabtay inay keento balse ugu dambeyntii waxay noqdeen kuwa ay ku fashilantay inay ciyaartoydaasi la soo wareegto kooxda kubadda cagta Manchester United wararkii ugu dambeeyay maanta dhinaca weerarka Manchester waxay sheegayaan inay u dhaqaaqayso weeraryahanka PSG u ciyaara ee Randal Kolo Muani kaasi oo qaybtii labaad ee ciyaareedka soo dhaafay 2024-2025 u dhaqaaqay naadiga lagu magacaabo Juventus oo ma ugu soo ciyaaray Juventus ayaana iyadoo rabtaa in laacibkan si joogto ah ula wareegto balse waxay caqabad ay kala kulmaysaa Manchester United oo xiiseynaysa weeraryahan toos ah inay la soo wareegto haddii ay weeday Victor Gyökeres Victor Osimhen iyo Benjamin Sesko maanta Manchester waxay u waacatay inay la soo saxiixato Randal Kolo Muani inuu yimaado Manchester United waxaa iyaduna albaabada u furi doontaa labada saxiix ama labada ciyaartoy ee Manchester haatan u ciyaara ee Joseph Sixe iyo sidoo kale Rasmus Højlund kuwaasi oo iyagu midkood kooxda ka baxaya haddii uu yimaado Randal Kolo Muani Juventus ayaa sidoo kale iyaduna waxa ay eeganaysaa haddii laacibka lagu magacaabo Randal Kolo Muani uu ku biiro Manchester United in ay iyaduna la soo saxiixato Rasmus Højlund ka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United isla markaana sidaas Manchester ay iyaduna ku hesho Randal Kolo Muani Manchester ayaana waxay iyadu baadi goob weyn ugu jirtaa sidii ay ula soo saxiix lahayd
weeriyaan si weyn waxa qabtira dhinaca iyo gooldhalinta isla markaana boos weyn kooxdaasi kaga soo baxa iyadoo ay ku fashilmeen Sixey iyo sidoo kale Joseph Sixey ay raadiyay Rasmus Hojland in goolal badan ay u dhaliyaan kooxda kubadda cagta Manchester United xilciyaareedkii la soo dhaafay 2025 iyo 2024 oo ciyaartoydaasi ay ku fashilmeen in ay goolal qurux badan ama goolal badan ay u dhaliyaan kooxda kubadda cagta Manchester ayaana ugu dambeyntii waxay u weecatay Randal Kolo Muani kaasi ay u aragto in wax badan uu kooxdeeda ku soo kordhin karo xilciyaareed soo aadan 2025 dhinaca kale wararka Manchester maanta waxaan qaybka waxay u weecatay ama ay xiiso u qabtaa golayaha kooxda kubadda cagta ee PSG ninka lagu magacaabo Donnarumma oo sidoo kale iyaduna ay doonayso Manchester ayaana golayaha Donnarumma waxay u aragtaa inuu noqon karo bedelka ciyaartoyda golayaha u ciyaara Manchester haatan ee lagu magacaabo Andre Onana kaasi oo isaguna dhaawac kooxda kaga maqan waxaa la filayaa in kulamada ugu horeeya xilciyaareedka uu ka maqnaado kooxda kubadda cagta Manchester United Donnarumma ayaana isagu waxa uu isaga diiday heshiis kordhin ay usoo dalabtay ama usoo bandhigtay kooxda kubadda cagta PSG isla markaana hakad ayuu geliyay waxaana Donnarumma maanta isaguna lala xiriirinaya kooxda kubadda cagta Manchester oo iyadoo rabta inay bedel uga dhigato amaba booska koowaad ay uga dhigto kooxda Donnarumma isla markaana booska ay ka saarto golayaha haatan u ciyaara kooxdaasi ee lagu magacaabo Andre Onana dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Chelsea ayaa waxay soo gabagabeyn doontaa isbuucan xiise ay u qabto weeraryahanka kooxda kubadda cagta RB Leipzig ee Xavi Simons sidoo kale Chelsea ayaa maanta waxay heshiis ay la gaartay daafaca kooxda kubadda cagta ee Ajax Randal Kolo ninka lagu magacaabo kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay sii wadi doontaa wadahadalada kooxda RB Leipzig ay ugu doonayso laacibka lagu magacaabo Xavi Simons iyadoo Chelsea ay sheegayso ama wararku ay sheegayaan in ay xiisaha laacibkan ay soo gabagabeyn doonto dhamaadka asbuucan sida ay shaacisay Football London 7 maalmood ka hor Chelsea ayaa wadahadal waxay la furtay wakiilada 22 jirkan kaas oo ku saabsan suurtagalnimada ah dhaqaaqista garoonka Stamford Bridge tan iyo markaasi Blues waxa ay heshiis ballaaran ay la gashay Simons iyo wakiiladiisa laakiin wax heshiis ah lama aysan gelin RB Leipzig iyadoo kooxda reer Jarmal ay u furan tahay inay iska iibiso Simons oo kamid ah xidigeeda weerarka waxaana ay ku bixin doontaa waxa ay aaminsan tahay inay tahay lacagta ku haboon ee lagu heli karo laacibka lagu magacaabo Xavi Simons wadahadalada u dhexeeya Chelsea iyo Simons ama RB Leipzig ayaa si wanaagsan u socda sida ay ku warantay Football London waxaa la helay in xiisaha xidigan la dhameynayo dhamaadka asbuucan waxaana lagu wadaa in arrimuhu ay kululaadaan maalmaha soo socda iyadoo Chelsea ay heshiis la gaartay naadiga Al Nassr oo ay ku iibinayso laacibka lagu magacaabo Joe Felix isla markaana ay ka siinayso lacag dhan 50 milyan oo euro u dhiganta 43.7 milyan Chelsea ayaana Al Nassr waxay kala heshiisay iibka laacibka lagu magacaabo Joe Felix kaasi oo si toos ah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Al Nassr ay ka ciyaarto gudaha wadanka Sacuudiga waxaana Chelsea markaan ay u weecan doontaa sidii ay u soo saxan lahayd laacibka lagu magacaabo Xavi Simons oo iyadu si weyn u xiiseynayso waxaana la warinayaa in dhamaadka asbuucan ay Chelsea dhameyn doonto isla markaana ugu dambeyn uu noqon doono laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea dhinaca kale Chelsea ayaa maanta waxay heshiis ay ka saxiixatay laacibka daafaca ee ciyaara kooxda kubadda cagta ee Ajax ninka lagu magacaabo Randal Kolo Chelsea ayaa heshiiska shakhsiga ah waxay ka saxiixatay daafaca reer Holland ee Randal Kolo oo 19 jir ah waxaana Chelsea laacibkan ay ka saxiixdeen 8 sanadood oo heshiis ah waxaana ay Chelsea ay bixin doontaa 40 milyan oo gani oo ay laacibkan ay siin doonto kooxda kubadda cagta ee Ajax oo uu ka tirsan yahay Fabrizio Romano ayaana daabacay in heshiiska laacibkan Chelsea ay ku dhawaaqi doonto 12 saac ee soo aadan Randal Kolo horay waxa uu xiiseynaysa kooxda kubadda cagta Arsenal Chelsea qayb ay ka ahayd kooxda xiiseynayay balse Arsenal maadaama ay heshay laacibka lagu magacaabo Christian Masquera oo ay ka soo qaadatay Valencia waxay isaga hartay xiisihii laacibkan Chelsea ayaan ugu dambeyntii laacibkan heshiis 8 sanadood ah ka saxiixatay iyadoo 12 saac ee soo aadan Chelsea ay ku dhawaaqi doonto saxiixa laacibka lagu magacaabo Randal Kolo kaasi oo ka mid noqonaya kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday cid u duuri doonta rigoorada kooxda Arsenal xiriirka 2025 kadib imaanshihii laacibka kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon Victor Gyökeres kaasi oo ugu dambeyn ku biiray kooxda kubadda cagta Arsenal tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta ayaa si taxadar leh waxa uu uga jawaabay su'aal laga weydiiyay in laacibka cusub ee kooxda Victor Gyökeres uu noqon doono rigooro dhaliyaha rasmiga ah ee kooxda Arsenal xilli ay horay ugu tartamayeen booska rigooro tuurinta Martin Odegaard iyo sidoo kale Bukayo Saka Mikel Arteta oo lagu wareystay
Mikel Arteta oo la wareystay ciyaartii saaxiibtinimo ee 3-2 ay kaga badiyeen Newcastle United maalintii shalay ahayd ayaa waxa uu yiri waxaan hubaa in haddii loo ogolaado uu noqon doono sida aad u sheegtay wuxuu aad ugu fiican yahay rigorooyinka wuxuuna dhaliyay tiro badan oo rigoorayaal ah laakiin waxaan haysanaa ciyaartooy badan oo rigorooyinka dhaliya marka arintaasi iyaga dhaxdooda ayaa ka heshiin doona haddii kalena aniga ayaa soo faragelin doona ayuu yiri tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta. Gyökeres ayaa kaga yimid Arsenal kooxda Sport Lisbon halkaas oo si lama filaan ah uga noqday gooldhaliyaha ugu sareeya kooxda waxaan la sheegay inuu dhaliyay dhammaan 19 rigoore ee loo dhiibay xilciyaareedkii lasoo dhaafay 2024-2025 ee uu qaatay kooxda kubadda cagta Sport Lisbon ma jirto hal rigoore oo uu qasaariyay laacibka Victor Gyökeres 19 rigoore oo uu duray xilciyaareedkii lasoo dhaafay kooxdiisii hore ee Sport Lisbon. taasi waxay keentay in si weyn loo hadalhayo suurtagalnimada ah inuu noqon doono qofka ugu horeeya ee rigooraha u duuri doona kooxda kubadda cagta Arsenal. Arteta ayaana muujiyay kalsooni ku aadan rigorooyinka Gyökeres balse waxa uu xusay in kooxda ay leedahay ciyaartooy khibrad u leh shaqadaas inay qabtaan. waxaan haysanaa ciyaartooy kale oo rigorooyinka aad ugu wanaagsan sanadihii lasoo dhaafay. Bukayo Saka ayaa inta badan rigorooyinka u leedahay Arsenal inkastoo marar qaar isagu uu siinayay Martin Odegaard oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal isna waxa uu dhowr jeer uu qasaariyay mas'uuliyadda rigoorada. haatan Arteta waxa uu sheegay in ciyaartooyda laftooda ay si isafgarad ah ay kaga gaari doonaan go'aan cidda rigoorada laadeyso isagoo intaasi ku daray in haddii aysan sidaasi dhicinna uu isagu go'aanka soo faragelin doono isla markaana isaga uu si rasmi ah u magacaabi doono rigoora tuuraha rasmiga ah ee kooxda kubadda cagta Arsenal xilciyaareedka soo aadan 2025-2026 iyadoo Arsenal horay rigorooyinka ay ugu duurayeen Bukayo Saka oo ahaa rigoora tuuraha walow marar qaar uu dhiibayay laacibka kabtanka ah ee Martin Odegaard balse haatan kooxda uu ku soo biiray Victor Gyökeres oo 19 rigoore ee uu xilciyaareedkii lasoo dhaafay u duuray kooxdiisii hore Sport Lisbon dhammaantood shabaqa soo wada daafsiyay. Arteta marka wuxuu yiri iyaga ayaa go'aanka iska leh iyaga ayaana qof u dooran doona balse haddii isqabqabsiga uu bato aniga ayaa faragelin doona go'aanka isla markaana aan shaaci doono cidda sida rasmiga ah rigoora tuuraha kooxda kubadda cagta Arsenal u noqon doonta xilciyaareed soo aadan 2025-2026 ayuu yiri tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta. dhinaca kale weeraryahanka kooxda kubadda cagta Newcastle United Alexander Isak waxa uu ku sii dhawaanayaa ku biirista kooxda kubadda cagta Liverpool maadaama Luis Diaz isaguna uu ku sii dhawaanayo kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee ka ciyaarta gudaha wadanka Jarmalka ee Bundesliga. weeraryahanka kooxda kubadda cagta Newcastle United Alexander Isak ayaa qarka u saaran inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Liverpool xagaagan sida laga soo xigtay khabiirka suuqa iibsiga ciyaartooyda Fabrizio Romano. Liverpool ayaa diyaar u ah inay si weyn usoo xirigeliso xidiga heerka caalami ee dalka Sweden kadib markii Luis Diaz uu gabi ahaanba iska diiday inuu kooxda sii joogo isla markaana uu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Bayern. Diaz ayaa ku biiraya Bayern kadib markii uu heshiis kala gaaray kooxdaasi haysatay Bundesliga si uu Anfield uga tago isla markaana ugu wareego garoonka Allianz Arena oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Isak ayaa dhankiisa doonaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Liverpool maadaama uu kaliya doonayo kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League inuu u ciyaaro 25 jirkan ayaa xitaa wax wada hadal ah aan la yeelan kooxaha Sacuudiga inkastoo kooxda Hilal lagu soo waramayo inay u soo bandhigtay mushaaraad la yaab leh oo gaaraya 600,000 in usbuuci uu qaadan doono. sidoo kale Hilal waxay sheegtay in xitaa canshuur laga qaadaynin laacibka lagu magacaabo Alexander Isak haddii uu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Hilal ee ka ciyaarta gudaha wadanka Sacuudi Pro League. laacibkan Alexander Isak waxa isagu ka go'an inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo uu sheegay inuu aad u jecel yahay Liverpool ayaana Luis Diaz waxa iyadu ku wareejinaysa kooxda kubadda cagta Bayern oo dalabkii ugu dambeeyay ka soo gudbisay 70 milyan oo lagu daray 5 milyan ayay miiska u soo saartay kooxda kubadda cagta Liverpool inay qaadato si markaas Luis Diaz ugu biiro kooxda kubadda cagta Bayern. lacagtaas ay Liverpool waxay ku dari doontaa lacag iyadoo la warinayo Liverpool in 150 milyan oo ay dalbatay kooxda kubadda cagta Newcastle ay miiska u saarayso isla markaana Newcastle wax diidma ah aysan kala kulmi doonin maadaama laacibku uu diiday inuu kooxda tababarka u raaco kulamada isku diyaarinta uu la ciyaaro sidoo kalena
qandaraas kordhin uu ka diiday 1 sano ayaana qandaraaskiisa ka hartan laacibkan naadiga Newcastle waxay ku qasbanaan doontaa inay aqbasho iibka 150 milyan oo ay Liverpool ka soo gudbin doonto laacibkan. Liverpool ayaan la warinayaa in maanta Isniin ah ilaa Jimcaha ay ku qaadan doonto inay gabi ahaanba ay dhameyso xiisaha laacibka lagu magacaabo Alexander Isak oo ay ka soo qaadanayso kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Isak ayaan isagu si weyn waxa uu xiiseynaya kooxda kubadda cagta Liverpool in uu u ciyaaro. Ugu dambeyntii wararka ugu waaweyn suuqa iibka ciyaartoyda haddii aan eegana laacibka kooxda kubadda cagta Everton baa horta kaga tagay Dominic Calvert-Lewin waxaa la warinayaa inuu diyaar u yahay inuu ku biiro koox kasta oo uu post joogta ay ka helayo. Sidoo kale wararka waxaa qayb ka ah gooskooska ay suuqa maanta ay qorayaan laacibka Joe Felix waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Al Nassr. Cristiano Ronaldo oo Portugal ay ka soo wada jeedaan ayana halkaas ka wada ciyaari doonaan. Joe Felix ayaana waqtiyaha wanaagsan ku soo qaatay kooxo dhowr ah oo amaah isagu ugu biiray Chelsea ayana ugu dambeyntii 50 milyan ka siisa kooxda kubadda cagta Al Nassr laacibka lagu magacaabo Joe Felix. guud ahaan daawadayaal inta ay ku soo gogweynaya barnaamijka faqriyada ciyaaraha TV barnaamijka mid saaxiib yaal kulmi doona nabadgelyo.